saaxiibayaal haddii aan la idmo waxaan doonaynaa inaan videogan si kooban ku barano qaabka systemka ama workbook loogu xareeyo alaabta uu ka ganacsanayo shirkadu badeecada ama alaabta uu ka gadayo customerska ee suuqa uu ka ganacsanayo waxaan doonaynaa inaan gelino systemka ama workbook okay ganacsigan waxaa loo yaqaanaa Nevaya Electronic Business waa company ama waa shirkad aan dhawaan soo bilownay xisaabteeda haddii aan la idmo waxaan doonaynaa in alaabta uu ka ganacsanayo aan systemka gelino waxaan ka jawaabi doonaa su-aasha sidee systemka workbook loogu xareeyo alaabta uu ganacsigu ka shaqaysanayo ama uu ka ganacsanayo waxaan samayn doonaa recording item list oo ah in alaabta diiwaangelino isla markaana systemka aan ku xareeyno haddii aan la idmo waxyaabaha uu ka shaqaysanayo ganacsigan waxaa ka mid ah mobileska oo ah waxyaabaha korontada ku shaqeeya maadaama ganacsigan uu yahay ganacsi electronic business okay waxaan samayn doonaa mobile ayaa ganacsiga la doonaya in mobiladan la xareeyo oo systemka la geliyo mobiles okay mobilka ugu horeeya waxaa loo yaqaanaa A20 boqol xaba ayaa yaala oo la keenay qiimihiisu waa 140 astaantiisuna waa kan waa raamkiisu waa 6 maskaxdiisu waa 128 GB waana Samsung okay iyo mobilada kaleba waxaan doonaynaa inaan systemka gelino oo xareeyno okay systemka ayaan soo galaynaa meelo kala duwan ayaa laga list gareeyaa alaabta oo laga record gareeyaa marka ugu horeeya menuga list haddaan tagno halkaa waan soo geli karnaa item list halkaa waan ka xareyn karnaa sidoo kale haddii aan soo socono waxaan imaanaynaa menuga customer dabeetana halkaa waan ka xareyn karnaa oo halkan waxaa ku qoran item list sidoo kale menuga ku xiga vendor baa la dhahaa halkan waa la imaan karaa halkaana waa laga xareyn karaa item list sidoo kale waxaa laga xareyn karaa dashboardka barnaamijka ama interfaceka hore meesha ku qoran tahay items oo badeecadii productigii iyo service oo ah ganacsigu inuu ka shaqaysan karo sometimes serviceka waxaa loo yaqaanaa adeeg salaan ganacsi oo ka shaqaysan karaa mobile repair mobilada in dayactiro computerada service baa loo yaqaanaa laakiin ganacsigeenu hadda wuxuu ka shaqaysanayaa items ama product okay si aan alaabta u diiwaangelino waxaan tegaynaa list then waxaan ku dhufan doonaa meesha ku qoran tahay item list okay item list markaan soo galno halkan waxaa noogu record garaysan alaab aan horey ugu diiwaangelinay oo systemka aan u gelinay oo mobiles okay si aan mobile cusub ugu soo darno halkan waxaa ku qoran magacii mobileka descriptionkiisii faahfaahintiisii badeeca inuu yahay akoonka lacagta ku dhacayso inta xabee alaabta laga hayo iyo priceka haddaan doonayna shay cusub kusoo darno keyboardka waxaan taabanaynaa mousekeena right click baa dhahaynaa then waxaan leenahay new item cusub soo geli okay new item baa ku dhufanaynaa then ganacsigan wuxuu ku shaqaysanayaa inventory party waa badeeco laakiin service maaha okay inventory party waa ku dhufanaynaa halkaa marka mobileka halkaa waxaan ku qoraynaa magaca mobileka waa A20 marka mobilkaas A20 ayuu noqonayaa okay descriptionkiisa haddii aan eegno faahfaahintiisa waa kan waa raamkiisu waa 6 waa 128 GB waana Samsung intaa soo koobi garaysanaynaa halkaa marka purchase information warbixintaan kusoo gadanay halkaa ayaan control V leenahay okay tab haddaan idhaahno wuxuu buuxinayaa godka ku xiga loo yaqaano sales information oo ah warbixinta lagu gadi doono ama suuqa lagu geynayo okay godka waxaan imaanaynaa cost oo ah qarashkii kusoo baxay ama lacagta